maalintii ugu horeysay ee Ciidul Adha ayaa magaalada Joor waxaa laga dareemayaa munaasabadda Ciidul Adha waxaana goobo fara badan oo ku yaal bartamaha magaalada Joor oo ah goobo loogu talagalay munaasabadaha ciidda aan kula kulmay qaar kamid ah shacabka ku nool magaalada Joor iyo caruur waliba goobta ay ku sugan yihiin caruur fara badan oo si weyn loogu soo labisay waalidiintooda qaar kamid ah dhalinyarada halkaas kala kulmay ayaa iga waramay munaasabadda Ciidul Adha waxyaabaha ay sanadkan ku xusuusan karaan sidoo kale waxay habaliye bogaadin u direen ummadda islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan eheladooda iyo asxaabtooda iyo waalidiintooda ayaa adigoo ku bilaab magacaaga munaasabadda Ciidul Adha awgeed iyo habaliye bogaadin halkan uga diraysaa السلام عليكم دمان أمد الصوماليات ملك استيجوان السلام يا عيد ونقصن أنيقو محمد حيدر عبدي وعن هالكان نبلي أقدر عيدا ويدي أبي دمان أصحابتي إذا ملك استيجوان عيد ونقصن أيه أدينا أضرب معكم بلا بيها بلي بقادين مناسبة عيد الأضحى أوجد هل كان قدر يسا إن شاء الله مجيء وقدر محمد وعن هل كان مناسبة عيد الأضحى وقدر يا عمبليو ومد المسلمين تلمان نقول بيجوجان وعلى كل عام وأنتم بخير وعن هل كان وقصي دريا الذي ذا قرابة ذا ملك استيجوجان وعلى كل عام وأنتم بخير عيد ونك ولو حين كل جرنا هم بلي عيد الأضحى سلامه دليل أنبا أصحاب توديرناين eladooda iyo asxaabtooda meel kasta ay joogaan ayay magacaaga adoo ku bilaabaya ما شاء الله مقعي ويلس عدو محمود الحمد لله وعن كفرح سنة مانت إنا نكقيب قالوا عيد دبالدقي عيد الأضحى لما والله عليك المسلمين تعملوا البيجوان حنلاقي هاي عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير أولا السلام عليكم إن هالكان إن مانت أو مالين عيد الأضحى إن هالكان وحك السلام يا عيد أود أمد الصوماليات دمان مالول بيكونوا ليهين وعليه halkan ay ka salaamaysaa habay muqdisho jooga dadka dhan oo Soomaaliyeed ah halka ka salaamaya ay hambaliye meelaha ciidda hambaliye ay u diray dadka dhan waa masanta adigana islaamka meesha markasta joogaan yaa kala salaamaya gaarahan aabe Bokar Maxamed Baadle warbaahinta qaranka caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar